Asalaamu calaykum asxaabta halkan waa Saciid Madaali Sports waxaad ku soo dhawaataan wararkii u dambeeyay ciyaaraha John Stones oo laga reebay xulka qaranka England ayaynu fiirinaynaa saaxiib ay looweynaa subscribe saarto like dhahda fiidiyoga aadna share gareyso si gaar ah waxaan kaga codsanayaa saaxiib aan laad 100 subscribe nagu tuubtaan waad mahadsantihiin tababaro kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu mararka qaar ka reebo xeerarka uu dejiyo Thomas Tuchelna ka reebistiisa waa John Stones tababaraha England wuxuu arkay Stones oo maray xilli liita oo Manchester City aad ahaantii mid kale oo la mid ah kii hore gaar ahaan marka loo eego tirada kulamada uu ciyaaray mar kale waxaa jira dhibaatooyin dhaawac waxaana muuqata in Stones uusan si buuxda u soo koobi karin arrintaas oo si aad cadaatay toddobaadka xulka England ciyaaryahanka 31 jirkan ayaa ku dhibaatooday tababarka markii uu dareemay xanuun muruq ah kubka ah Khamiistii Tuchel wuxuu qasbanaaday inuu ka saaro kulanka saaxiibtinimada ee Wembley oo ay la yeesheen Uruguay habeenkii Jimcaha wuxuuna bilaabay Fikayo Tomori oo la safay Harry Maguire bartamaha difaaca kulan caajis ah oo 1-1 ku soo dhamaaday halka Stones uu ku soo laabtay kooxdiisa isla markaana uusan ka ciyaari doonin kulanka Japan ee Talaadada ma ahayn oo kaliya xaaladda jireed ee Stones ee City xilli ciyaareedkan wuxuu ku soo laabtay 12 Febraayo kadib dhaawac muruq ah laakiin 10 kulan ee xigay 2 jeer oo kaliya ayuu Pep Guardiola ku soo bilaabay waana kulamadii FA Cup ee Salford iyo Newcastle United inta kalena wuxuu ahaa keed aan la isticmaalin marka laga reebo kulan Premier League oo ay la ciyaareen kooxda kubadda cagta ee West Ham Stones wuxuu kursiga keedka ku jiray labada lugood ee Champions League ee ay kaga hareen Real Madrid sidoo kale finalkii Carabao Cup oo ay kaga badiyeen Arsenal axadii hore inkastoo Guardiola uusan haysan Ruben Dias iyo Josko Gvardiol oo dhaawacma iyo Mark Weah oo aan u qalmin tababaraha wuxuu ku bilaabay Cabdulqaadir Khusnuf iyo sidoo kale Nathan Ake Stones wuxuu ciyaareedkan ku bilaabay 4 kulan oo horyaalka iyo 4 kulan oo Champions League ah kii ugu dambeeyay wuxuu ahaa kulankii Bayer Leverkusen 25 November markaasoo City gurigooda 2 gool iyo eber looga badiyay sidoo kale Tuchel wuxuu kalsooni ku qabaa Stones oo ah xulashada lixaad ee ugu dambeysay ee kooxdiisa uu hogaamiyo Pep Guardiola wuxuu cadeeyay ciyaartoyda koobka adduunka ay tahay inay ciyaaraan laakiin dareenka jira ayaa ah haddii Stones uu ciyaari karo oo weli muhiim u noqon doono xulkiisa waxay ahayd arrin muhiim ah Tuchel Stones uu ka xigay Girona bishii June ee sanadkii hore xero tababar oo cimilo aad u kulul inkastoo uusan taam ahayn inuu ka ciyaaro kulankii Andorra wuxuu rabay inuu kaliya inuu arko markii ugu horeysay waxa uu jeclaa waxa uu arkay waxaan rabaa ayuu yiri ciyaartoy baa arag ah oo ilaaliya heerarka kooxda Stones waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican ayuu yiri sidoo kale waa awoodda Stones ee heer caalami ah sida Tuchel uu sheegay kadib markuu dhaawac uga baxay xerada September wuxuu ciyaaray dhammaan 4 kulan ee October iyo November Tuchelna aad ayuu ugu riyaaqay haddii aad timaado koobka adduunka waa inaad taam noqotaa ayuu yiri Tuchel markii John uu yimidna taam ayuu ahaa waqti badan ma uusan ciyaarin laakiin fahamka ciyaartiisa waa heer sare waana ogaa inuu diyaar u yahay ciyaar inkastoo uusan mar walba bilaabin anigu waan taageersanahay waana ogahay waxa uu kooxda u keeno shakhsiyadda dabeecadda ay sidoo kale faham ciyaareed wuxuu hadda aad ugu xun yahay xaaladda waxaana haysata taageeradeeda buuxda waana ciyaaryahan heer caalami ah laakiin wuxuu mar kale dareemay muruqa oo kubka sidaas darteed khatar ma gelinayo ayuu yiri waxa uu leeyahay kalsooni badan aan ku qabo waxaan rajeynayaa in uu taam noqon doono waana waxa ugu muhiimsan ayuu yiri waxa xiiso leh xaaladda Stones ee la barbar dhigo Harry Maguire oo lamaane difaac uu sameeyay xilligii Gareth Southgate kaasoo hadda ku soo laabtay qaab ciyaareed wanaagsan Manchester United ciyaaryahankan oo 33 jirka ayaa bilaabay dhammaan 10 kulan ee kooxda tan iyo markii uu yimid tababaraha ku meel gaar ah oo Michael Carrick ah taasi waxay sababtay in Tuchel uu ugu yeero xulka kadib 1 sano iyo bar isla markaana uu ka ciyaaray kulankii Uruguay halkaas oo si fiican u ciyaaray oo xitaa badbaadiyay England daqiiqadii ugu dambeysay isagoo ka hor istaagay Federico Valverde waxaana uu la dareemayaa inuu ku dhow yahay boosaska koobka adduunka balse Tuchel wuxuu sheegay in arrinta sidaas aysan ahayn uusan ku degdegi doonin arrinta Harry Maguire saaxiibayaal waad mahadsantihiin ay lowina subscribe saartaan beedka aadna noo follow gareysaan aragtidiina nagu reebtaan qaybta hoose ee comment